هي حتى waxa laga yaabaa inaad mar walba maqasho cryptocurrency bitcoin blockchain iyo waxyaabahaas oo aadan wax badan aad ka fahansaneen haddaba aan kugu fahansiiyo cryptocurrencies-ka 60 kilobriqsi ee soo socota hadduu alle insha Allah crypto waa lacag digital ah sidoo kalena ah decentralized oo macnaheedu ay tahay maamul dhexe ma lahan taas xitaa waxa loola jeedaa bangi ama cid kale oo dhexdhexaada ma jiraan kaliya adiga iyo sidoo kale blockchain-ka ayaa mar walba tacaamulaya haddaba aan si fudud kugu sharxo tan soo jeedaan waa lacag waxa maamula dawlad iyo sidoo kale bangi way badin karaan sidoo kale qiimaheeda ay hoos u dhigi karaan ama ay kor u kicin karaan sidoo kalena transactionskeedana way bloogi karaan laakiin tan oo ah cryptocurrencies-ka waxay kaga duwan tahay iyada waxa power gareeya wax loo yaqaan blockchain oo ah public ledger ama diiwaangeliye oo public ah oo sidoo kalena digital ah oo cid kastaba ay arki karto cid kastana aysan waxba ka bedeli karin ama cidna aysan waxba ka bedeli karin waana amaan oo security ah degdegsiimana leh sidoo kalena caalami ah oo waa global waxaa jira kumanaan cryptocurrencies oo way kala duwan yihiin laakiin waxa ugu horeeyay ama OG u ah bitcoin-ka sidoo kale waxaa jira ethereum oo iyadana power gareysa wax loo yaqaan smart contracts-ka iyo sidoo kale meme coins-ka oo iyagana ah waxyaabo loo sameeyay as fun si guud cryptocurrencies-ka dadka way trade gareeyaan way maalgashadaan sidoo kale dadka qaar waxay kasbadaan crypto iyagoo isticmaalaya wax loo yaqaan mining-ka iyo staking-ka iyo sidoo kale play to earn gains-ka laakiin mar walba xasuusnaa adiga mar walba samee baaritaanka ku gooniga ah crypto aad ayuu xiiso badan yahay laakiin dhanka kalena waa halis badan yahay haddaba haddii aad tahay qofka cusub cryptocurrencies-ka ama aadan hore u maqlin crypto xagga hoose noogu reeb waxaad ka aaminsaneed cryptocurrencies-ka sidoo kalena like saar muuqaalkan followna soo beh si aad ula socoto warbixino iyo akhbaaraad ku saabsan cryptocurrencies-ka